in general markaynu uga hadallo wax xirfadoo qofka Soomaaliga uu leeyahay laba shay u baa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari ka xeeyo walabada xirfadood Soomaalidu xirfad kale ma ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihiin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxba idinka socday oo Soomaalidaaba baa mushtarka u badan baa arkay Afrika xaga kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuna adag oo aan ku ogolaanin inaad si fudud u soo gashayo cashuur iyo kanna waa dul saaran yihiin saadaradeed tijaarada Soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa يعني وحوي waa maqaaxi yar oo Soomaali wax ka gada intan qaxoontiga iyo qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo xirfadda labaad ee Soomaaligu leeyahay waa darawalnimadaas ay qaarkood marka ay shaqadu banaato yani markay wadanka shaqo la'aan